بسم الله الرحمن الرحيم. aan wax ka barano weydiintan ah what is inflation. Inflation waa sicir barar, halka inflation rate uu ka yahay heerka sicir bararka. haddaan intaa isla fahanay aan u soo laabano erebixinta inflation ama sicir bararka waa heerka sara u kaca ku imaanaya qiimaha badeecadaha iyo adeegyada inta lagu guda jiro muddo cayiman. tusaale, sanadkii imise ayay gaarsiisan tahay heerka sara u kaca qiimaha badeecooyinka iyo adeegyada. haddaba marka uu imaado sara u kaca qiimaha waxa ay keentaa inuu hoos u dhacdo awoodda iibsiga lacagaha ama purchasing power. fadlan ka dhegeyso lifaaqa hoose oo aan hadda kor kaga soo hadalnay erebixinta purchasing power. ogow, marka uu sicir bararka yimaado waxa ay saameysaa badi adeegyada iyo badeecadaha. ee haddii uu hal shay qiimihiisa sare u kaco ma ahan micnaheeda inuu sicir barar jiro. aan ka hadalno markana sababaha guud ee keena sicir bararka. waxaa ka mid ah in lacagta wareegaysa ama taalla suuqa oo aad u sarreysa ama in la daabaco lacag cusub. gunaanad, si guud haddaan uga hadalno farqiga u dhexeeya purchasing power iyo inflation. aan ku hormarno purchasing power waxa ay cabirtaa awoodda iibsiga lacagta, halka inflation rate-ka uu cabiro heerka sara u kaca qiimaha badeecadaha iyo adeegyada. haddii rabbi idmo qeexidda xigta waxaan kaga hadli doonaa sababaha ugu waaweyn ee keena sicir bararka. midda sii xigi doontana waxaan kaga hadli doonaa qaababka lagu cabiro sicir bararka. mahadsanidin, waa inoo markale haddii rabbi idmo.